ودور وهل يدعى هوين كان ودور وهل يدعى مركي عيد هايو هلاقى بعدنا مركي عيد هايو هلاقى بعدنا وهرماتك قره runtii la isku haleyn karo. عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو نكسن دعوة شيء قيمها إيه قدرين تمدن مركلة إيه برنامج كإني هواينك يقيسك كسر دوادة برنامج كتضبط كوحة نوجو مرتيا حقيقة أمنية إيه دبهشيسين كأورك هواينك قرن كالصوماليات مرو أبشرة أحمد مالين سولو ما ودوه برنامج كبسوا قيب كشيء waxaan ku weydiin lahaa ugu horeyntii bal ururka qaranka Soomaaliyeed oo aad maxay xogayaa ka tahay cid aan garanaynin oo aqoon aan lahayn hadii aad nabarto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ugu horeyntii halkan waxaan ka salaamayaa gudoomiyaha ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed Batuulasha Axmed Gaballe oo ila aanteed barnaamijkan uu Salmaanta hirgaleen iyo guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adinkoo ila joogo TV-ga qaranka dhamaan salaanta islaamka inuu salaamayo haweenka qaranka Soomaaliyeed hadii aad nabarto oo mar kale oo noo sharaxdo wallahi horta haweenka Soomaaliyeed ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed waxa la aasaasay xaytan lixdameeyadii muddo aan dhaweyn ayay gabdhaha Soomaaliyeed ururka ayuu jiray ururka haweenka dawladii rayidka ahayd militariga ahayd gabdhuhu waxaa jiray ururka haweenka kadib burburkii markuu dhacay ee dadkii kala tagay ee wadanku maxaytan dadkii ummadii ay wadanka ka baxeen intii joogtay gabdhii joogay way tashadeen waxaan isniri war sidee dalkan loogu soo celin karaa maxaytan ummadii Soomaaliyeed ka baxday iyo gabdhii Soomaaliyeed sidee la isugu keeni karaa waxaan ku aasaasnay ururka anagoo gabdho Soomaaliyeed oo qabiil lahayn ayaan aasaasnay ururkan wuxuuna ku aasaasmay garab istaaga dawladnimada iyo dhibaatada dalka ka jirta in aan qayb ka noqono oo aan magacii gabdhuhu lahaayeen inaan dhumin si gabdhaha dibadda jiraan ay u soo noqdaan ay ugu soo hirtaan kuwa dalka joogan isku garab maxay isgarabsadaan saas darteed lagu aasaasay haddana asaaskiisa meel fiican buu marayaa waa dareemi kartaa anigu asaasayaashii baa ku jira subaxii la qorayay gabadhii ugu horeysay Caasha Geesdir gabar Caasha Geesdir la yiraahdo gudoomiye ka ahayd subaxii Caasha Geesdir dadkii ugu horeeyay la qoray baan ku jiray qalanka koobaad saa ugu dhacay asaasayaasha ururkan kamid ah asay muddo badan ka soo wareegta waa lixdameedkii waxa la aasaasay marka ururka intaas oo maxay danay waqti ah oo aad u fara badan waqti badan oo dhacay ayaa jira maxaa idin qabsoomay ururkan والله horta gabdhaha Soomaaliyeed ururka markaan aasaasnay inaan anagu hanti helno oo inaan aasaasin waxaan u aasaasnay dhibaato jirta markaas inaan ka jawaabno oo kaalinta haweenka banaanka la dhigo oo ay muuqato oo gabdhihii aan la raadin oo la dhiin xagee haweenkii jira markaan aragnay ragiina war isku qaateen iyaga islaynayaan wax naxariisi jirin ee wax baabaaya haweenkii iyo caruurta tahay ayaa waxaan isniri bal haweenka kaalintoodii waa inaad banaanka dhigtaan saas darteed waa cadan xiranay banaankan istaagnay nimankii baan kala celinay oo niri dagaal ma jiro dagaalku inta naga hada iska beesha baan ku istop garaynay meeshaasaan barnaamijkaas lagu aasaasay si gabdhaha dhibaatoona aan wax ugu qabano dadka is haystana aan wax ugu sheego kaalinta haweenkuna ay u muuqato hal asaasi si dadkii aad isku soo dhaweysaan ayaa markaa uu muhiimadiisu u ahaa ay muhiimadiisu ahayd waxyaabaha la oran karo markii aad shirkii aad isku timaadeen ugu horeeyay waxa jira waxyaabo inta badaysan oo target ah oo ururka muhiimadiisa ay tahay wuxuu asaasan yahay ma waxay nagayni ahayd dawladii la dhiso oo dib loo soo kabto oo maxay idin hawlahaasi amniga aad ka shaqeysaan dadka mise inaad haweenka aad awood saartaan oo wacyigelintii haweenka iyo maxay ahayd haweenka kaliya ma aan wacyigelinaynin waxaan wacyigelinaynaa cid kasta oo aan leenahay amni darro dalka ku tahay ayaan ka wacyigelinaynaa dhibaatada ciddii aan gaarsiin karno codkeenana waa gaarsiinaynay ururku sidaad u ogtahay waa looyarada u dooda dadka aan codkooda meelaha dheer gaarin
si aan haweenka dhibaataysana ugu soo jeedino indhaha bulshada dadka amni darada yani wadanka ka badbaadinaya sidaan qayb lixaad uga noqono dowlad dhiskana waxaan ka ahayn lafdhabar sidaan anigu qabo sababtay tahay dowladeenan wax ka dhisin dalkan kamay dhalanin dowlad kasta anagaa garab taagnayn anagaa wax ka dhisaynay anagaa tala ku lahayn anagaa hor soconay anagaa salka u dhignay ilaa haddana waa garab taagan waxyo kala duwan oo qaybo kala duwan baad leedihin marka qof walba ururka dhinaciisa uga shaqeeya hadda xafiisyada shaqeeya waa badan yihiin xafiisyo badanaa shaqeeya laakiin agaasimayaashu waa 12 xafiis 12 agaasima meesha ayaa xafiis marka shaqada maalinlaha ee ururka uu qabto ilaa maalinkii la aasaasay ilaa maanta shaqada maalinlaha ururku qabtaa waxay tahay waxaan subaxii markii la isku yimaado waxa la isweydiiyaa meesha dhibaatadu ka jirto maxaa xala dhacay isbitaalada dhaawacyada booqo dadka jiran booqo xabsiyada tag haweenka dhibaataysan xabsiyada ku jira waa booqanaa kuwa maxaan ku dhihi lahay dhibaataysanay ilmaha lagu dayriyo waan booqanaa cidda waxaan wax u qaban karna kuwa yani waxaan u qaban karnaa u qabanaa maxaan ku dhihi lahay meeshii aan isleenahay wacyigelin waxaan ka wacyigelinaa gabdhaha sida dhaqan xumada tiktokka isku soo bandhigayo jirkooda maxaan ku dhihi lahay waxaan ka hortagnaa daraagashka oo kale wixii amni darro aan u aragnana waxaan la wadaagnaa ciidamada ammaanka gabdhaha jaamacadaha dhigtaa ku jira ururka goboladana xafiisaan ku leenahay gabdhaha ciidanka militariga ururkay ka mid yihiin booliska ururkay ka mid yihiin gabdhaha saxaafadda wariyaasha ururkay ka mid yihiin haweenka soomaaliyeed oo dhan ururkay ka mid yihiin waxay wada leeyihiin sartaas waxaa weeye gabdho soomaaliyeed oo sartaa ku midoobay dibadda kuwa qurba joogta ururkay ka mid yihiin ururku 3 iyo 2 ma aha xataa kun waa ka badan ilaa 5 kun waa gaaraya socday oo ra'iisul wasaaraha la yeelatay wasaaradda haweenka oo haweenka inta badan doorka lagu saarayay shirarkaasi maxaa ka xasuusataa oo muhiimadda ay lahaayeen oo maalmahan dambe oo dhan socday wallahi shirarkaasi waxay baritaarayeen kacdoonka dadweynaha markaan aragnay dhibaatada dalka ka jirta in ciidankii dowladdu istaagtay ayaan anagu waxaan isniri kaalinta haweenka waa inaan muujinaa waa inaan banaanka istaagnaa codkeena muujinaa oo maqashiinaa shabaab inaan joogno oo haweenka Soomaaliyeed ay maanta u istaageen dalkan amnigiisa ay qayb ka qaataan qayb lixaad ka qaataan maxaan ku dhihi lahaayay wasaaradda haweenka gabdhaha maxay tin gobolka Banaadir ay gudoomiyaha u tahay Jawaahir Baarqab gudoomiyaha Khayr Allah say gudoomiyaha Batuulo kulli macal gabdhaha maxay tahay ururka qaranka meel kasta joogaan waxa la go'aansaday oo la iskugu yimi maanta toole haweenku inay kaalintooda muujiyaan oo banaanka istaagaan oo tusna caalamka inaan diyaar u nahay dib u xoreynta dalka si aan ciidamada qaranka u garab istaagno jiro oo xaaladda amnigu waxa kaliya tii hadda oo maxay miiska saaranaytay marka Soomaaliya la arkayo la dagaalanka nabadiidkana ay tahay waxa ugu horeeya ee hadda dawladdu qorshaheega ay tahay aad waxa tahay xogayaha amniga iyo dib u heshiisiinta ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed bal waxa la isweydiinaya dadka qaarkood isweydiinayaan shaqadeedu talo maxay tahay maxay maama Abshiro bal waxaad naga warantaa shaqadaada oo ku saabsan maxay amniga waa mahadsan tahay maama horta maxaan ku dhihi lahay waxaan ahay maamo weyn oo khubaro ku ah dalka 91 ilaa haddaan joogaa waad dareemi kartaa qofkii intaas dalka joogay waa dictionary waxaan la qaybsadaa wixii aniga aan isleeyahay micnaha fikradaha waa la wadaagaa soo maaha qofka anigu aan isleeyahay waad ka waxaan uga fikrad badan tahay ama uga ay aragsan tahay hadduu yahay baalkii hay'adaha amniga hadday tahay haweenka Soomaaliyeed hadday tahay gabdhaha yararka oo hadda tababarka la rabo in la tababaro ilaa anagu waa sii soconaa jiil barabna inaan soo saarnay dadkan wacyigelinaa oo wax u sheegaa oo nirahnaa sidaas waxaas yihiin saas wax yihiin saa la yeelo hay'adaha amnigana inta badan waa la shaqeynaa waxaan kala shaqeynaa amni darada wixii dalka amni darada ku ah maxay kala shaqeys wixii amniga loo baahdo wixii amniga loo baahdo oo Abshiro ah anigu Abshiro maxay ka qayb galayeen ornayo xogeeye amniga aad iyo aad haweenka qaranka Soomaaliyeed arinta amniga waa oo ka qayb gasheen haddana xoog bad uga hadasheen dhawaan waxa jirtay waxay deeqad gaarsiiseen maxay ciidanka uu soo gaaray dhaawacyada oo isbitaalada ku booqateen qorshe badanna dalka waa ka jira oo hadda nabadiidka lagu xukuumadda iyo bulshada iska kaashadeen oo gobolada qaar ka socda marka door intee leeg bad arrinka ku leedahay hadda door weyn baan arrinta ku leenahay sideedaba guud ahaan haweenku way iska warhayaan waa shabakad isku xiran haddii aanan anagu ka urur ahaan waxaan go'aan ku gaarnay inaan dadka aan update ku ahayn in ciidanka la garab istaago inaan horta update ka dhigno
oon ku wacyigelino sidii ciidamada loo garab istaagi lahaa sida dhaawacyada loo booqan lahaa wixii la gaarsiin karo loo gaarsiin lahaa maxaan ku dhihi lahay kaalinta haweenka sidii loo muujin lahaa sida gabar walbaaba ay uga qayb qaadan lahayd dhibaatooyinka jira iyo waxa socda waayo amnigu anagu dan noo yahay ilan haddii inaan amni jirin hooyo hurdumayso waad ogtahay wax ku dhimanaya waa wiilkeedii waxa furinta taagan waa wiilkeedii waxa isqarxinayana waa wiilkeedii markaas sidaas darteed anagu waxaan ku leenahay kaalin weyn oo lasoo koobi karinin waxaan wax u sheegnaa bulshada aan ku baraarugsanayn in ciidanka la garab istaago oo dagaalaa socdo un kaliya dhahaya kuwaasaan waxaan u sheegnaa in ciidamada la garab istaago oo wax allaale waxay u baahan yihin lala garab istaago hadday wacyigelin ahaan lahayd hadday sahay ahaan lahayd hadday caafimaad ahaan lahayd hadday booqasho ahaan lahayd ay intii lala garab istaagi lahaa oo dhan siday ula garab istaagi lahaa ciidamada ayaan ku baraarujinaa ganacsatadaan u sheegnaa gabdhaha maxay tihin shaqaysto gabdhaha jaamacadaha gabdhaha maxay tihin xirfadleyda oo maxaan waxba adigu sida gabdhaha xaafadda iska joogo oo kale si ay amniga uga qayb qaadan lahaayeen say ciidamada u taakun ileen haddii maanta tolab ay booqdaan meesha dhaawacyadu yaaleen oo ay agab yargeeyaan bari xayn kalaa ku dayanaysa oo intaa in la egeynaysa marka waxaan anagu istaraatiijiyad dheer aan jeexnay oo ah marka hore inaan gabdhaha Soomaaliyeed baraarujino marka labaadna wixii anagu aan gaarsiin karno inaan gaarsiino marka saddexaadna gabdhaha gobolada inaan dhiirigelino marka afaraadna inaan ciidamada amniga la shaqeyno oo aan gacan buuxda ka siino wixii amni darada dalka ku ah socdo qadoonku oo misan hawlaha maxay ay ka socdaan madax badan aad tagtay hawshooda hadda waa socotaa haweenka qaranka waxaad ku leedihiin maxay xafiisyo kala duwan baad ku leedihiin gobolada marka gobolada noqoto door intee leeg baad ka qaadataa horta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa anigoo ka faa'iideysanaya maanta munaasabadan gabdhaha gobolka Hiiraan qasatan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ahaan jirana baalkii xildhibaan hore Cali Jeyte oo ah aabihii kacdoonka shacabka gabdhaha gobolada jooga isteediyada oo sida lixaad kale uga qayb qaatay dagaalka dib u xoreyntana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa haddaan ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed waxaan leenahay waa in garab taaganahay haddaan dib u soo noqdo gabdhahaasi waxay ka mid yihiin ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed waa gabdhaha mar walba aan iska warhayno xogta kale aan la wadaagno waa gabdho ka tirsan ururka oo haliyeyaal ah oo fadhiya isteediyada degan oo xafiisyada ku leenahay isteediyada xafiisyada ku leenahay waa ka qayb galan si aan caadi ahayn waliba uga qayb qaateen maalin walba arkaysa ay furmaa taagan oo ciidanka garab taagan oo ilaa lixdamaadii ayaad hawlaha bulshada kusoo dhex jirtay waxay dadku inta badan leeyihiin Soomaalidu waa isbedeshay waxyaabaha badan oo dhaqankii isku bedeshay xaqii isjacaylkii iyo walaaltinimadii maadaama qof badan u soo joogaad hayd intaasi maxaa isbedel oo dareemaysaa adiga oo rajada maxay shacabka Soomaaliyeed kaaga jirto intee ilaagtay والله الحمد لله هرتا لحدنكي أنا بتاريخ دان هيا ما هني مجارين لحدنكي متشوجين لكن تاريخ دان هيا الحمد لله لكن قبلها وشاس حرية داس وكذا لي هو كلنا وكذا بين أنا ونتشيل في سد هذا النهاي ده كلنا وأنا قدم بين دونا لكن هذا وحنسلاي هاي رجل مركان أدي في عنده طبعا أنت وحسوا أركاي ومركي وقف عنده سببته أي تاي markii hore ciidamada kaliya dagaalami jiray waxa la dhigi jiray halkaas ciidanku maanta qabsaday ama laga qabsaday hadda laakiin shacabkii baa kacay marka kacdoon shacab ayaa socda iyo ciidankii iyo dawladdu oo kaalinteeda qaadanaysa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta rajadeedu waa fiican tahay maadaama aan waayo soo joogay maanta in bay ugu wanaagsan tahay la isleeyahay xaaladdu oo maxay qaabkan ay hadda dadku u socdaan wax loo wado sida wax loo wado oo yani haddii ay bulshadoo dhan ay iska garab istaagto oo sidaan hadda wax u socdaan ay sii socdaan oo muddo ay maxay bulshadaasi iyo maxay xukuumaddu ay isgarab jigto in nabadiidka laga guuleysto aad iyo aad shakiba kuma jiro insha Allah ilaahay idinkiis rajo fiican aan ka qabnaa in laga guuleysto dalkuna uu ku xoroobo dhalinyarada haweenka ah oo hadda social media maxay dhibaato badan nagu yeelay raad badan buu nagu yeeshay marka xaqiiqda laga hadlo iyo in qofkii bilaankii wixii uu sameynayay oo wax uu la sameynin si khaldan loo fasiro oo maxay haweenkuna inta badan qayb bay ka yihiin baa leeyahay inkasta oo dadka oo arrimahaasi ka gaabsaday inta badan dhibaatooyinka loo geystay yihiin laakiin haddana haween badan waxa jira maxay in lagu ceebeeyo social media oo dhibaatooyin badan loo geysto bal arinta oo social media oo saameynta badan yeeshay haween ahaan idinka sida uga falgashaa marka hawlahaas kala maqashaa si idin damaqdaan
walaahi arrimahaas iyada waa ku tala jirnaa inaan ka hortagno. Wacyigeli badanna waa suubino, goobo badanaan uga hadalnay, annaga iyo culimo adduunka iskaashanayna sidii loogu hortagi lahaa dhaqamadan xun ee dalka kusoo biiray, gabdhihii Soomaaliyeed sharaftoodii dilay. ileen gabadha Soomaaliyeed hadday qurux badan tahana waxay matalaysaa gabdhaha Soomaaliyeed, hadday qaldan tahana qaladka waxay ku matalaysaa gabdhaha Soomaaliyeed oo islaamka ah, dunida islaamka oo dhan. Marka wax badan aan ka wada hadalnay si looga wacyigelin lahaa gabdhaha arrintaas iyada ah. Haddana waxaan ku tala jirnaa inaan dhisno guddi la yiraahdo guddiga anshaxa ee social media haddii ilaah yiraahdo, annaga iyo culimada iyo ururka qaranka iska kaashanayo. haddana la aado dhalinyarada maxay social media ku jira waxyaabo badan haddana muhiima ay leeyihiin baa jira. marka intaas ka nimaadno abaara dalka ka jiray, maxay ciyaal weeraa jira, arrintii amniga iyadoo jirto. marka ciyaal weeraha oo mataqaanaa inta badan dhac dadka u geysanayay bulshadii oo maxay waxyaabo baahiyooga aasaas muhiim u ah mararka qaarkood ka dafaayo dhibaatooyinkaasi guryaha xaafaday ka soo baxaan hooyooyin aa dhalay ciyaalkaasi. marka aad u xogeeyay amniga tahay arrinta ciyaal weerada ma ka hadashay oo maxay ma ka howlgashay? Waxaan la wadaagnay kuwa xaafadanada meel xashiishku cabo oo dadka dhibaateeya ayaan hay-adaha amniga u sheegnay oo la wadaagnay. ciyaalkaas ayagaana saldhigoodii waa la burburiyo, waa laga saaray meeshii. ciidamada amniguna waxay uga shaqeeyaan si aan caadi ahayn. waxaasoo dhan waxaa keenaya dhibaatooyinka dalka ku dhacay. dalka waa lagu soo duulay, dalkan dowlada shisheeye kusoo duulay. waxaana arkaysaa waa wax la beeray. hadday draagiska ahaan lahayd, hadday dadkan dhaqan xumada social media la taagan ahaan lahayd, waxaasoo dhan waxa nooga qorshaysan wax la yiraahdo wacyigelin oon iska kaashanayno annaga iyo culimaa diinka iyo ciidamada amniga haddii la yiraahdo. aada iyo aada abaaraha haweenka Soomaaliyeed maxay ka geysteen? waa runtaa maama, abaaruhu waa soo noqnoqdeen. waxaan u malaynayaa abaaraha annaga waxaan ka geysanaa kaalin lixaad leh. abaartii u dambeysay oo hiiraan loogu gurmanayay, fatahaadii andhe iyo maxaan ku dhihi fatahaadihii oo kale. waxaan soo aruurinay alaabo badan. maxaan ku dhihi waxaan duubnay bur, waxaan diyaarinay waxaanoo sahaya, waxaan u dhiibnay dad markaas baxayay diyaaradaha raacayay sida dharka oo kale. dadkii waa ka barakacay, guryihii bannaankay dhooman yihiin, dharma ay qaadan karinin. maxaan ku dhihi waxaan u diyaarinay wixii markaas naf looga yacni lagu qaban lahaa oo sida burka oo kale, sida adiga wixii markaas aan isleenahay waxay u noqon kartaayo naftay ku ceshan karaan ayaan diyaarinay. waxyaalo badan aan diyaarinay. dad baxaayo oo guddiya oo markaas gurmanaya ayaan u dhiibnay haddii maxay tin oo niri gaarsiiya dadkaas. abaarahoo kale saas lamadahan ugu gurmanaa. ayagana waxaan soo aruurinaa waxyaalihii looga hortagi karo oo maxaan ku dhihi lahay aan isdhihi karno wixii logistica oo markaas aan isdhihi karno waa gaarsiin kartaan ayaan gaarsiinaa. dee ururku asaga laftiisu waa dad iska masaakiin oo dee dhibaatadaas ku dhex nool yahay. laakiin inta tabarteena wax aan uga harnay maba jiraan, hadday abaar ahaan lahayd, hadday fatahaad ahaan lahayd iyo hadday amni darro ahaan lahayd. aad bay usoo noqnoqdaan. mar walbana waxaa lagu baraarugaa uun dhibaatada iyadoo lagu dhex jiro. miyayna ka wacnayn in laga hortago oo intaanay waxyaabahani iyo abaarahan iyo dhibaatadan iyo fatahaadahani ay soo socon yihiin, ay soo ogyihiin oo la ogyahay inay kolleyba imaanayaan, maxaa looga hortagi waaysa oran kartaadi? taas wallaahi waa qorshe qaran. dowladda weyn dowladda u taallaa wax urur iyo wax lamid ay suubin karaan ma aha. waxaan rabaa inay qorshe ka yeelato dowladdu oo ay diyaariso. qorshahaasna anaguna qayb ka noqonaynaa baan isleeyahay. laakiin anagu shakhsiyan waxaan abuuri karna ma waana awood naga sarreysa weeyaan. taaligad urur ku jirta maxaad ka baratay? wax kasta shaqo kasta ayba waxaa laga bartaa, khibrad baa laga bartaa marka lagu jiro. waxaan ka bartay sida loo wacyigeliyo haweenka, conflictiga sida loo xaliyo, sida ammaan darrada looga hortago, sidii gabadhii dhibaataysan loogu gurmado, sida dadka ummadda reeraha dumaayo kale ninka iyo naagta isfahmi waaya sidii laiskugu soo jiidi lahaa, sina ilmahaasi u noqon ilmo baylo oo labadii isdhashay ay cilada dhigeen. marka waa wacyigelinaa. waxaan ka bartay waxyaalo badan. waxaad ku noqonaysaa activity baad yeelanaysaa. qof activity la wax badan og baad noqonaysaa. waayo waxaad la kulmaysaa bulsho kala gedisan oo maxaan ku dhihi lahaay fikrado kala gedisan oo waxaad ka qayb galaysaa shirar badan oo looga hadlaayo ama amniga, ama looga hadlaayo maxaan ku dhihi lahaay dhibaatooyinka dalka ka jira, ama looga hadlaayo xitaa qaybaha waxbarashada, caafimaadka oo kale. wax kasta waa ka qayb galnaa anagu. wax idaan ka qayb gelin oo aan ka micnaha aan leenahay qayb kuma lehin ma jirto. wax kasta qayb aan ku lehay oo dalka gudihiisa ka socda. wacyigelinta ma keentaan marka laga tago shirarka adduunka ka qayb gashaan waxyaabaad ka faa'iidaan
si aad haddana bulshada kale usii gaadhisaan maadaama haweenka qaranka Soomaaliyeed waxay dhibkaas oo marka laga tago la sheegayo ciyaalkan oo la tuurayo oo la dayacayo iyagoo sharci darro ku dhashay wax dambiya aan lahayn haddana maxay dana haweenkii baa dambigaasi galaya idinkana ururka haweenka tii ma sameysaan wacyigelin ku saabsan haweenka aad siisaan dhalinyarada horta marka horeba gabdhaha waxaan ka wacyigelinaa inaysan si fudud ku gelin meelaha qaar oo iska ilaaliyaan ayaan dambe social media la iska bartaa qofkina muxuu yahay muxuu ka shaqeeyaa maxaa kaaga iman kara midna ma jirto waxaa jira wax la yiraahdo jacaylka wajigaaga tus jirkaaga tus saas la isku guursadaa kadibna waxa dhacda ama iyadoo bal isguursan baa gabadhii la dhibaateeyaa waxa dhacda gabadhii nafteeda khatar la geliyo gabdho badan sidaas naftooda ku waayay kuwa kalena khatar ay ku galeen arrintaas waa ka wacyigelina gabdhaha inay ka waantoobaan oo ay ka fiirsadaan jacaylka dhalanteedka ah oo social media sida social media ninka laga bartaa ninba ma aha waa inaad caadi u barataa qofka shakhsiyadiisa barataa dadnimadiisa barataa meesha ku mid barataa wax kaaga imaan kara baraka aad barataa laakiin haddaad halkan inta la iska arko dibadaha kasoo duulo beerkii kaliya kaala baxa dhibaatadeeda ilaa ama bari inta hotelku geeyo uurku yeelo airport markuu ka duulo uu telefonka ka darsado dhibaatadeeda ilaa marka waxaas oo dhan gabdhaha waa ka wacyigelinaa waxaan idhahnaa waxyaalaha dhibaatada noocaas gabdhaha waa soo noqnoqotay iska ilaalsha deganaansha muujiya sharaftiina ilaashada ninkaas kuwansanaysaan iska fiiriya xaaladaha ku degdeginina khatar badanaa jirta naftiina ilaashada waa u sheegnaa gabadhi waa kula dhalatay waana ku dhashay gabdhaha dhibaatada ka daayay iyaga liftooda waa wacyigelinaa aad iyo ma la is oran karin rag wanaagsan ayaa laga heli karaa social media reero qaarkood baa ku dhismay oo hadda maxay danay aad ugu wanaagsan oo isfahan fiican dhex yaala macnaha mararka qaarkood ma aaminsantahay in laga heli karo nin wanaagsan social media ma ambisan gabadh wanaagsan oo reero fiican ka dhismi karaan wallahi bilaadanku isku mid maaha shanta farood ilaahay baa muslimin soo maaha laakiin inta badan social media khatartiisa badan waxaad arkaysaa laba qof oo maanta isxambaarsan berrina laleeyahay iscunaya social media dhexdiisa isku caayaya oo dadku uu ka faa'iidaysanayo laleeyahay isaguna uu caayayo leeyahay ama iyadoo qaawan buuba soo dhigaya oo wixii sawir baan ka hayaa gabadhii nin xaaskiisii oo qaawan sawir ka inta ka duubay social media banaanka soo dhigaya baa la arkay marka waxaa lay badda hal malay baa qormiya haddii nin wanaagsan jiray ninka xun baa xumeeyay haddii gabar wanaagsan jirtana midda banaanka taagan tahay gabdhii wanaagsanaa sharafta ka qaaday marka guud ahaan waxaan leenahay dhinaca xun inta la iska daayo dhinaca wanaagsan ha loo noqdo waxaad bulshada u sheegi lahayd ma jirtaa munaasabadan waxaan uga faa'iidaysanayaa maanta horta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo u hambalyeynaya halkaan hambalyo uga soo jeedinayaa taliyaha ciidanka militariga taliya generaal wadawaa iyo wasiirka gaashaandhigga iyo xildhibaanada kale wasiirka ku-xigeenada maantay fayska cusub furay ee furinta taagan ee niyadeeni iyo mooralkeeni kor u qaaday waxaan arkayay iyagoo geed hoostii fadhiya wasiirka gaashaandhigga wasiir ku-xigeenka alcadaala taliyaha guud ee ciidamada militariga oo geed hoostii shax ku dheelayaan arkayay meel ay xoreysteen fadhiyo oo aada u qurux badan marka runtii aad bay ii hidadiila gelisay waan ku faraxsanahay waxaan leeyahay garabkiina allaha galo waad mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed maanta dawladdu waxay ku jirtaa halgan aan dib loo soo noqonaynin ilaa dalka laga xoreeyo waxaan leeyahay qof kasta hadduu dibadda joogo iyo hadduu gudaha joogaba ha loo diyaar garoobo garab istaaga iyo dib u xoreynta dalka dawladdana la garab istaago waxaa la yiraahdaa inta badan dhinaca nabadeynta iyo meel aynu hooyo ku jirin ba inta badan maxay muhiim badan ma laha la yiraahdaa waana sababta mataqaana imka maxay haweenkiini ya aad marqay aad in badan keedinaysan la soo baxdeen oo aad saameyn ugu leeyihiin haweenku inta urur ku jirta iyo inta ina daawanaysa macna inta urur ku jirta waxa ka badan inta kale ee ayaguna bulshada ku dhex jiro hadda ina daawanay maxad iyaga far lahayd haweenka laftirkooda haweenka waxaan leeyahay lahaa walaalayaal horta marka hore waa inaad midowdaan ilaahayna ka cabsataan dalkiina u soo jeesataan aad garab istaagtaan dawladdiina iyo dadkiina iyo dalkiina iyo diintiina waydaan dib u noqonin maanta dib loo noqon mayo waa inaan maanta toole dalka xoreyno oo u istaagno kaalinta haweenka ay lahaydna ay ka muuqato halkaas haweenku waa lafdhabarta bulshada guri aan hooyo joogno nuur ma lahan wiil aan hooyo garab taagnayna ma guuleysto waxaan rabaa kaalintii haweenku lahaa adinkoo dal ilaa dawlad meel ay joogtaan gacmaha haysta inaad maanta muujisaan ee la garab istaago ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee dib u xoreynta dalka ku jira ee la garab istaago dawladnimada ee la garab istaago diinteena iyo cisrigeena iyo sharafteena iyo sumcadeena si u soo noqon lahayd inay u istaagaan
su-aal waxaa jirta aan maxaydana weydiino haweenka marka haweenka guryaha jooga ee inta badan bulshada aan ku dhex jirin iyo haweenka isxilqaamay howlaha qaranka ku jira maxaydana howlaha gaarka ah ku jira ganacsiyada ku jira maadaama oo adigu qof banaanka usoo baxay tahay muddana intaa uu ka shaqaynayo bulsho ku dhex jiray maxaa ay ku kala duwan yihiin baad oran kartaa والله horta haweenku waa shaqada isku xiran waxba kuma kala duwnaa midda maxay ta ganacsanaysaa ama gurigeeda joogtana darufta meesha geysay midda suuqa taagana de kulli tooskeeda u tagtay suuqa inay tagto ay bulshada wax la qaybsato saas darteed waaba isku xiran oo waxba nooma kala qarsoona because gabadhaas guriga joogtahay aniga waraysi way la yeelanaysaa anuguna wixii ku qaldan waraysi waan kala yeelanayaa marka waxaad moodaa xoogaa inay de qofkan banaanka joogo wax badan buu ogyahay kuwan aan banaanka tagin guriyaha fadhiyaana wax badan ma ogaan karaan inkastay social media wax walba uu yahay telefonka oo adduunka iskugu yimi waxay moogtahay la arag haddana xoogaa waxbay ku kala duwan yihiin aan isleeyahay dadna waa dad banaanka taagan oo wax walba ogo dadkii la xisaabtamayo oo ummadii arkayo intaa shir ku jira dadna waa dad gurigii fadhiyo waxba kala ogeyn aad iyo aad ugu dambeyntii aad baa ku diri lahayd mar kale waxaan baa qudirayaa mar labaad bulshada Soomaaliyeed waayo bulshadu waa dhiga adag tahay waxaan leeyahay garabka waa in gacanta la isqabsadaa dalka in la xoreeyo waay muqdisho waa in koonfurta Soomaaliya waa in la xoreeyaa khaasatan muqdisho hadda goboladii waxaad moodaa baashu inay gabagabo tahay laakiin magaalada ayaa baan isleeyahay waa buuxda marka magaalada waa in ciidamada amniga lala shaqeeyo dadka dhamay banaanka u soo baxo qofkii gurigiisa ku qarinayo nin dhagar qabaa bari aduu ku dilaya banaanka hadda u soo saarin oodan kacdoonka ka faa'iideysan midkii soo han maxay tan la isleeyahay waxba loo sheegi karaa ha loo sheego oo dhaqan celin ha loo suubiyo midkii kale oo dib iyo qaxar meel la fadhiyana de bulshada hal tuso hay'adaha amniga hal yiraahdo ninkan waa sharwada nagala qabto marka waa inaan hurdo dambe iyo fadhi dambe loo laaban ilaa dadku ku xiroobayo dhammaan waa in gacanta la isqabsadaa dawladda xasan sheekh iyo maxay tan xamse cabdi barra kaliya waxba ma xoreyn karaan haddaan ummadda Soomaaliyeed aysan isgarabsan haddaan dadku aysan ka midoobin haddaan dalkan aan loo istaagin haddaan maxay tan Soomaalinimada la baadagoobin haddaan dawladnimada dib loo soo celin haddaan maxay tan cadawga la iska kaashan haddaan hooyada guriga ku jirtaa inay halkaan u maray haddaan midda badarka gadanaysa ay dheen waa kan haddaan midda maxay ku dhihi lahaay hoosta ku haysaa aysan banaanka u soo saarin cid arki kartaa ma jirto waxaa qaasatan haya oo nimankaas la shaqeeya oo hoosta ku haya waa gabdhaha Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa gabadhii hoosta ku haysooy bari aad ku dilaya bari adun buu malakimood ku yahay banaanka hadda iskaga soo bixi umadan Ilaahay oo subhanahu wa ta'ala oo kacdoonka ayuunba arkaysa indhaha saarto banaanka iska soo dhig nimankaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala subhanahu yaalana wixii subhanahu samay waxaan soo nusaneen Allah na dhaafiyo intaas daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan barnaamijkeena haweenka iyo qoyska toddobaadkan intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maama Abshiro Axmed Maalin oo ah xogayaha amniga iyo dib u heshiisiinta ururka qaranka haweenka qaranka Soomaaliyeed farsamayaqaankan waa mahadcelinayaa intaynu barnaamijka xiga dib u kulmayno waxaad ku dhaafaynaa nabadgelyo haweenkeenu wadoon وحليا دعدا هوينكن ودور وحليا دعدا